السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي دمانتنا ملو البادوني زكا جوكتان kusoo dhawaada muuqaal cusub waa tartankeeni timaha qaybtiisii labaad muuqaalka ugu horeeya ka daawanaysa challenge-gan hadii uu yahay waxa jira muuqaal ka horeeyay oo deewanka insha Allah soo daawo si aad u fahanto maaskiga la marinayo timaha muddada bilka ah sidoo kale isbuuci waxa soo gudbiyaa 3 jeer insha Allah iyo ku dhaafin muuqaalkan tintaada hadii aad jeceshahay inay ku qurux badnaato isticmaal jilcisan oo uga maarmaysa timahaaga dhan waxay noqonayaan in la fooneeyo camal ma sha Allah waxyaabo dabiici oo cajiib ah waaye insha Allah ka faa'iideysta ayaa loo kala harin yaa laga caajisin maaskigi marka soo shiiday ma sha Allah cream yaa soo dhigay tinta si fiican u marinaya ma sha Allah tabarakallah maaskigan timahaaga maalinta koowaad aad marisid waa arki doontaa sidoo kuugu qurxiyo sidoo kale tintaada shanlada kuma dhibeyso qaleelku ka saaraya tinta dhan uu isku dabaridaya sidoo kale timaha wuxuu kaaga dhigaa in la fooneeyo camal ma sha Allah tabarakallah aad u jeclaan doontaa insha Allah hadii ay isticmaashid hadaa hore u isticmaalna hadda ku taa muuqaalkan insha Allah sameeso muuqaal koreeya daabo si aad u fahanto challenge-ga hadii aad ka hesho muuqaalkan fadlan like loo dheh sidoo kale subscribe noo saar channel-ka nagu soo biir si aad u mid noqoto asxaabta ku xiran mar walba qurxi timahaaga adigoo u isticmaalaya waxyaabo dabiici ah kana reeso jilciso iyo kalar dhibaatadeeda iyo waxyeelada ay timahaaga ku reebayso insha Allah tintaada mar walba aad rabtid inay jilic ku noqoto sidoo kale timo qaleel aad ka reesatid tintaada ay noqoto mid shiny leh oo qurux badan gacanta hadii aad ku taabanayso aad u bageyso insha Allah maaskigan isticmaal hana ka harin gabdhaha isticmaalay challenge-gii kan ka horeeyay oo socday 7 bari oo ku faa'iiday aad ugu mahad celinaya natiijada quruxda badan ay soo celiyeen gabdhaha hadda kan nala wado insha Allah yaa la caajisin horaha loo sii wado challenge-gan aad idin anfici doona timihiina isbedelku waa arki doontaan insha Allah muddada bilka ah marka challenge-gan aan isticmaalno waana soo bandhigi doona tirada ku darsoontay sida uu soo bandhigay 7 bari challenge-ga ah insha Allah muuqaalkan aad ayaa u xiiseynaysan dhamaantiina waa idin soo dhaweynaa waa idin ku bogaadinaya mar walba inaad timihiina daryeeshaan sidoo kale habeenkii subax tintaada shanlay routine uga dhig habeenkii marka seexanaysa hal galaan ka dhig subax marka soo kacdina sidoo kale timahaaga shanlay insha Allah waa labada gelin ee ugu wanaagsan ee timaha la shanleeyo timaha caafimaad qabkooda sare u sii qaada tintaadana waxay ka dhigaysaa ma sha Allah tabarakallah tin bilic leh oo qurux badan insha Allah hadsaas quruxda badan ugu marinaya maaskigan qaabka loo sameeyo deewanka ayaa ku soo sameeyay insha Allah dib u raac haddana si fiican ugu mariyo ma sha Allah tabarakallah timahaaga hadii aad rabtid caafimaad qabkeeda sidoo kale tintaada inay ku noqoto mid strong ah oo quwad leh dhaqsi ku baxda bixitaanka ka qayb qaadanaysa ma sha Allah tabarakallah maaskigan hadii aad muddada bil isticmaashid tintaada isbedel weyn oo la taaban karo ayaa ka gaari doontaa insha Allah waadna ii soo duceyn doontaa mar walba waa idin mahad celinaya sida quruxda badan ay ugu xirantihiin aad ii dhiirigelisaan ay support gareysaan waa idin kaga mahad celinaya sharaf iyo karaamo korkiina ahaato insha Allah isbuuci waxa soo galin doona 3 jeer oo kala ah maalinta oo isniinta ah maanta muuqaalkan aad daawanaysaan sidoo kale maalinta jimcaha iyo maalinta arbacada soo galin doona week 3 bari ayaa ka marin doona insha Allah gabdhaha waxay soo dhaheen maalmaha isku xiga maalin marinaya may la marinayo maalinna waxa u dhaxaysiinayna 2 maalin maalinna waxa loo dhaxaysiinaya 1 maalin insha Allah sidaas ku wada adinkana sida challenge-ga aad uga harin waxtarkana aad u heshaan marka tintaada aad marisid waxa ku joogaysaa 30 daqiiqo ugu badnaana 1 saac ku joogaysaa timaha sidaas iskugu soo loogaya ma sha Allah tabarakallah tintaada daadashada xataa way yareynaysaa markii aad daryeelka u badisid sidoo kale shanlada u badisid waxyaabo maaskad ka joojinayana aad isticmaashid ma sha Allah jilciso waad ka maarmaysaa kalar waad ka maarmaysaa tintaada caafimaadkeeda dareemaysaa adigana madaxu ku qaboobaya mar walba waxyaabaha dabiiciga aad u badsada si ay timihiina u noqdaan kuba caafimaad leh ma sha Allah tabarakallah sida quruxda badan hadda ugu mariyo bilicda leh insha Allah tintana waad aragteen sida uu qurxinayo oo ma sha Allah wadigayo gabdhaha nala bilaabay dheewana marayna qaybta comment ku soo qora adinkana sida iigu noqoto dhiirigelin muuqaalkan si gaarsiiyay gabar walbo si ay u noqdo motivation ee timaheedana u qurxiso waxyaabaha dabiiciga iyadoo isticmaalayso insha Allah hadtinta waa ka soo dhaqay marka soo qalajiyay biyo caadi ah ku soo dhaqay wax shaambaa kuma dhaqin sidoo kale waxa la isticmaalaya maaskigan markii timaha laga dhaqayo maalin saddexaad condition ama nafaqo tintaada ku dhaqaysa wax shaambaa ama taabsiin doontid insha Allah timahaagana waxay ku noqonayaan kuwa caafimaad leh timo baxa timo daadasho lahayn insha Allah hadana saliidana challenge-ga baamiye kaaroodka ayaa u marinaya saliidan aad u fiican tahay timaha waxay ka dhigaysaa mid xariir ah sidoo kale way madoobeynaysaa gabadheedu wax kale uma mariyo timaha ma sha Allah saliidana u daa'imay sidoo kale shaambaa u
daa'imay insha Allah waa idin la soo wadaagi doonaa gabdho badan oo commentiga igu soo qorayna arkay noola soo wadaag shaambooyinka iyo saliidaha bidnaail kareem muuqaal waa kasoo sameyn doonaa hadda tintii maasha Allah tabarakallah saliidii markaa mariyay sida quruxda badan noogu soo baxday timo qurux badan oo shacni leh isku dhagdhageeni kala furfuran maasha Allah haddii aad rabtid insha Allah isticmaal maaskigan ha ka harin challenge-gan faa'iido ka hartay tijaabi maalintii koowaad marsatintaas soo ka dhigay bal arag si aad ugu la socoto challenge-gan aadna uga caajisin insha Allah mar walba waxa idin ahay dhiirigelin sida adinkaba igu tihiin kuwa dhiirigeliya mar walbana i garab taagan wamaasantii dhamaantiina sida quruxda badan ay ugu xiran tihiin muuqaalkan like fara badan noo saaro waxay noo cadeynaysaa rabitaankiina heerka uu taagan yahay insha Allah like-tan waxay ka caawinaysaa gabdho badan hore u aqoon waxyaabaha dabiiciga inay arkaan ayna ka faa'iideystaan sabab u noqo walaalka oo la dhiban daadasho ama timo aan bixinin insha Allah muuqaalkan intaan hadii aad soo gaartay aad nagu soo biirin fadlan nagu soo biir subscribe noo saar channelka siini share garow la wadaag asxaabtaada kale had tinta waa usoo dabay maasha Allah tabarakallah sis quruxda badan ee ugu soo baxday adigana tintaada way noqon kartaa midaan iyo mid ka sii qurux badanba insha Allah naftaada taas aaminsi sidoo kalena isticmaal waxyaabaha dabiiciga moora waxyaabaha dabiiciga isticmaashid moortimahaaga ay qurux badnaadaan moora shanlada u badisid moortimahaaga ay noqdaan kuba caafimaad leh insha Allah timadaadasho iyo gabdhaha ka cabanaya bixid la'aanta agoolka waxyaabahaas dhan timaha wuu ka saarayaa waa mask dabiici ah tintaada hadii aad u daa'intid aad ka dareemi doonto natiijo qurux badan timo bilic leh timo shine leh oo vitamins badan ku siinayo timaha dayactirayo repair ku sameynayo insha Allah muuqaalka xiga waxa soo gelin doona maalinta Arbacada sidaas nabad geliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh